Soo dhawaada jaalayaal. Tiimka Beta Squad waxay maanta duubayaan muuqaal ay 6 qof kaga soo dhex saarayaan ninka booliska ah. 6dan qof, hal qof oo kaliya ayaa boolis sax ah. Waxaa laga rabaa inay qofkaas soo saaraan. Wareegba wareega ku xiga, hal qof ay isku raaci doonaan inay ciyaarta ka saaraan. Haddii ay soo saaraan midka booliska ah, iyaga ayaa guuleysan doona. Balse haddii ay soo saari waayaan, ninkay doorteen abaalmarin lacageed ayuu ku guuleysan doonaa. Waxaa markan soo gelaya 6da qof ee la kala saarayo. Wareega koowaad waxay mid kasta weydiiyaan booliska qaybtee ayaad ka shaqaysaa iyo warbixintiisa oo dhammaystiran. Ninka koowaad waa Jason oo u shaqeeya booliska Atlanta. Waa sida uu isku qeexay. Kadibna waxay ku dhahaan xabsi ayaa ka muuqata, nin boolis camal u hadal. Nico wuxuu dhahaa number 1 boolis uma eka. Number 2 waa Afo. Wuxuu u shaqeeyaa booliska Brad. Waa siduu isku qeexay. Janks wuxuu ku tuuraa kaftan ah maxaa waaye booliska oo Brad iswata. Number 3 waa Matt. Wuxuu u sheegaa inuu yahay sarkaal howlgab ah oo u shaqayn jiray booliska Henry County ee gobolka Georgia. Janks wuxuu dhahaa number 3 wuxuu ila eg yahay boolis, xirxirnaantiisa iyo hadalkiisa darteed. Nico isagoo kaftamaya wuxuu ku dhahaa Henry County Henryal miyaa ka buuxa. Number 4 waa Tracy. Wuxuuna ka tirsan yahay booliska Rockdale ee gobolka Georgia. Number 5 waa Scott. Wuxuu u shaqeeyaa booliska Cobb County ee gobolka Georgia. Number 6 waa Tarek. Wuxuu u shaqeeyaa booliska DeKalb County. AJ wuxuu number 6 ku qabsadaa inuu sheegtay isla wixii uu number 5 sheegtay, balse wuu ku qanciyay. Nico wuxuu number 5 weydiiyaa taariikhda familkaaga wax iga sheeg. Wuxuuna ku dhahaa hooyaday waxay ka soo jeedaa Birmingham. Wayna ku qoslaan maadaama uu qalday habdhawaaqa magaalada. Maadaama wareegan aysan ku go'aamin karin, waxay u gudbaan wareegga labaad. Wareegga labaad waxay mid walba ka hubiyaan qaabka uu qof u xirayo. Nico ayaa bilaabay oo ku dhahaya yaad xiraysaa inteena. Number 1 Nico ayuu doortaa. Waxyaabaha ay rabaan inay qiimeeyaan waxaa ka mid ah hadalka ninka booliska ah uu ku dhawaaqayo marka uu qof xirayo. Number 1 hadalkiisa way ku qosleen, shaki ayuuna geliyaa. AJ-na wuxuu dhahaa waan hubaa hadalka booliska intaas wuu ka badan yahay. Nico wuxuu ku dhahaa kan waan ka baxsan karaa. Balse number 1 ayaa ku dhahaa isku day oo baxso. Nico markuu isku dayayna wuu baxsan waayay. Number 2na wuxuu doortay inuu AJ xiro. AJ markuu number 1 warka ku badiyo, wuu wabsadaa wuuna iska sii daayaa. Number 3 ayaa markan ku xiga, balse intuu xanaaq u muujiyo ayuu ku dhahaa xiritaanka wax kaftan galma idinla tahay. Haddaad rabtaa inaan idin xiro qalad iga gala. Kadibna maxaan sameynaa ayay ku dhahaan nin boolis aflagaadeeya ayuu ku dhahaa. Way cabsadaan kadibna way isku dhiidhiibaan wayna ka gudbaan number 3. Number 4 wuxuu doortay inuu shaarkii xiro. Markuu u soo dhawaaday ayuu ku dhahaa jeeso gacmahana taag. Kadibna intuu baaro ayuu garbaduub u xiraa. Kadibna wuu iska sii daayaa. Number 5 Janks ayuu doortay. Markuu u soo dhawaaday isla stebiskii hore ayuu mariyaa. Kadibna wuu sii daayaa. Number 6 wuxuu doortay Philly. Isna wuxuu iska dhigaa nin lagu qabtay isagoo dhax fulinaya. Wuuna ka baxsaday. Amaan afkaaga kaaga horeysaa horaa loo dhahay. Philly wuxuu u soo fariistay inuu faalo ka bixiyo habjiliinka uu sameeyey. Maadaama uu wareegii labaad soo idlaaday, waxay markan u cadeynayaan qofkii ay tartanka ka saari lahaayeen. AJ ayaa bilaabay number 1 iyo 2 ayuu hal mar u wada codeeyay inay wareegan ku haraan. Nico-na si la mid ah 1 iyo 2 ayuu u codeeyay. Sharkina kama harin ee kuwii hore ayuu asna u codeeyay. Janks markay soo gaartay, wuxuu dhahaa number 1 model ayuu u eg yahay. Number 2na DJ. Sidaa darteed inay baxaan ayuu ugu codeeyay. Philly wuu ka duwanaa kuwii hore. Wuxuuna codeynta siiyey number 1 iyo number 5. Kenina number 1 iyo number 5 ayuu isna u codeeyay. Waxaana tartanka laga saaray 1 iyo 2. Maadaama codadka ugu badan ay heleen, 4 ayaan isku soo hartay. Waxaana la geli doonaa wareegga saddexaad oo su'aalo lagu weydiin doono. Kenny ayaa su'aasha bilaabay. Number 3 ayuu wuxuu weydiiyaa muxuu ahaa xarigii ugu saameynta badnaa ee aad samaysay. Wuxuu ku dhahaa niman madow ah ayaan xiray. Janks wuxuu ku qabsadaa maxaa madow u dhahday. Number 4 markii isna la weydiiyey su'aashaas, wuu ku daahaa jawaabta. Waxay ku dhahaan wuu ilaabay wuu soo xasuusanayaa. Kadibna wuxuu ku dhahaa waxaan soo qabtay mid ka mid ah raggii loogu doonista badnaa ama wanted-ka ka ahaa Mareykanka gudihiisa. Janks intuu ku qoslay ayuu ku dhahaa waxaa rabto waa noo sheegay. Si ay u rumaystaan maxbuuska magaciisa ayuu u sheegay iyo falka uu geystay, iyo in weli uu xabsiga ku jiro. Number 5 wuxuu dhahaa waxaan soo xiray gabdho cabsan oo diiday inay ka degaan gaari Uber ah oo u kireysnaa. Number 6na wuxuu u sheegay wuxuu soo qabtay. Kadibna waxay mid walba weydiiyaan number askareedka uu haysto. Number 3 wuxuu dhahaa 315. Number 4na 2395. Number 5na 3742. Number 6na 747. Janks ayaa kadib weydiiyey weligaa ku tagrifal awoodeed ma samaysay. Number 3 haa ayuu ku dhahay. Kadibna Janks wuxuu ku dhahaa haddii maanta aad awoodi lahayd ma noo isticmaali lahayd. Haa ayuuna ugu celiyaa mar kale. Number 4 isna waan isticmaalay ayuu ku dhahaa. Number 5 iyo 6 maya ayay dhaheen. Sharky ayaa Janice loo siiyey inuu su'aalo, balse su'aal qalqal gelisay ayuu weydiiyey oo ahayd
noo sheeg nambarkaagii askarnimo oo ahayd su'aalay haddaayay weydiiyeen balse wuu ka jawaabi waayay number 3 number 4na sidoo kale number 5 iyo 6 way ka jawaabeen qofkii ka sii waayay shaki ayaa ku abuurmaya iyagoo dhan way la yaabaan su'aasha uu Sharky usoo dhex dhigay AJ wuxuu weydiiyaa weligaa sharciga ciidanka ma jebisay number 3na maya ayuu dhahaa number 4 haa ayuu dhahaa number 5 iyo 6na haa ayay ku dhahaan tiimka Beta waxay ku qoslaan number 3 maadaama uu maanta oo idil uu xanaaqsan yahay kadib Nico wuxuu ballan qaadaa in qofkii number 3 ka qosliya uu siin doono lacag AJ ayaa isku daya wuxuu ku dhahay ma ogtahay Justin Bieberna u egtahay jawaab la'aan ayuu dhigay isku daygii Philina ma guuleysan Sharky ayaa isku dayay isagoo ku leh mukulaasha maxay digaaga ku dhahdaa markuu ma aqaano dhahana Sharky ayaa sidan ugu jawaabay wuuna ka qosliyay isaga ayaana ku guuleystay lacagta mar kale ayaa la codayn doonaa si qof meesha looga saaro Kenny ayaa bilaabay number 5 ayuu codeeyay Philina number 6 Chunksna number 5 Sharkyna number 5 Nicona number 5 number 5 ayaana helay codadka ugu badan sidaas darteed isaga ayaa tartanka laga saaray wareeg afraad waxaa la weydiiyaa Miranda rights oo ah hadalka ay booliska ku dhawaaqaan marka ay qofka xirayaan number 4 ayaa lagu bilaabaa qayb ayuuna dhaafsiin waayay Kennyna wuxuu dhahaa sidee suurtagal ku tahay nin boolis u shaqaynayay muddo badan haddana aan aqoonin Miranda rights number 6 ayaana si toos ah uga jawaabay You have the right to remain silent. Anything you say or do can be used against you in the court of law. You have the right to an attorney. If you do not have an attorney, you'll be appointed to you. Chunks wuxuu dhahaa wuu soo xifdiyey ama marar badan ayaa la xiray ninkan number 3 ayaa isna la weydiiyey balse wuu sixi waayey isagoona hore ugu sheegay inuu 30 sano booliska u soo shaqaynayay uuna hadda ka fariistay Chunks isla markii shaki ayuu ka qaaday number 3 Nico wuxuu weydiiyaa weli xiriir ma la samaysay qof maxbuus ah balse ugama jawaabin AJ-na wuxuu ku dhahaa muxuu ahaa wixii ugu xumaa ee lagugu xantay number 3 wuxuu ku jawaabaa inaan si xun ula dhaqmo African Americaniska isla markii waxay dhahaan inuu cunsur yahay ayuu noo sheegayaa kadibna Nico ayaa weydiiya ma sheegi kartaa 3 nin oo caan ah oo madow ah kadibna wuu sheegaa Kenny ayaa ku dhahaa intee ka soo jeedaa Georgia ayuu ugu jawaabay wuxuuna rabay inuu tuso calanka ugu dhagan mobilkiisa balse inuu baskoolad soo baxsanayo ay u maleeyeen kadibna waxaa la weydiiyaa nooca qori ee uu jecel yahay wuxuuna ku dhahaa 6 sac leh wayna la yaabeen markay su'aasha ku celiyeenna wuxuu ku dhahaa waxaan ula jeedaa baskoolada A45 AJ wuxuu dhahaa Ameerikaanka waa mucjiso qori ayaan weydiiyey saacad ayuu ii sheegay Nico ayaa haddana weydiiyey xilligee ugu jeceshahay waqtiyadii uu soo maray Mareykanka wuxuuna ku dhahay dagaalkii kacaanka waana mid ka mid ah waqtiyadii ugu xumaa ee uu Mareykanku soo maro kadibna waxay su'aashii qoriga ahayd weydiiyaan number 4 clock ayuuna ku sheegay number 5na clock 19 maadaama uu wareegan soo idlaaday waxaa la bilaabaa codeynta dhammaan waxay ka midoobeen oo isku raaceen in tartanka ay ka saaraan number 3 wareega shanaad ayaana la soo gaaray waana wareega ugu dambeeya ee lagu kala saari doono labada hartay AJ si kaftan ah wuxuu ku dhahaa labadiina isdagaala kii guuleysta ayaa boolis ah balse number 4 wuxuu ku dhahaa foodada ma jecli Nico oo meesha wax kala baxay ayaa wuxuu ku dhahaa ka waran hadduu qof rabo inuu kula dagaalo qof kale ayaan ku aadin lahaa ayuu ugu jawaabaa Kenny wuxuu ku dhahaa meeqa jeer ayaad aadaata mijaraha maba aado ayuu ugu jawaabaa isna kadibna AJ ayaa ku dhahaya natus sidaad hubka ula soo bixi lahayd markuu tuso way ku maadiistaan number 5 ayay isna weydiiyaan wuxuu bilaabaa inuu sharaxaad dheeri ah bixiyo waxay ku dhahaan niman weligiis qori qaadan ayaan weydiinay kadibna codeynta ayay bilaabaan AJ Sharky Chunks iyo Kenny waxay u codeeyeen number 6 halka Nico iyo Philly ay u codeeyeen number 4 kadibna waxaa loo wacaa dhammaan tartamayaashii waxaana lagu dhahaa qofka booliska ah horey ha u soo dhaqaaqo number 4 ayaana ahaa booliska saxda ah Philly iyo Nico oo horey ugu codeeyayna waxay dhahaan ma dabaaldegnaa waxay dhahaan maxaa Miranda right u dhameystiri weyday haddii aad booliska tahay Chunks wuu ka shalaayaa inuu u codeyn waayay number 4 Phillyna wuxuu number 1 weydiiyaa moodaliste ma tahay haa ayuuna ku dhahaa waana sida uu Chunks hore u sheegay kii uu DJ-ga ku tilmaamayse ma noqon kadibna number 6 ayuu ku dhahaa actor ma tahay maya musician ayaan ahay ayuu ku dhahaa see waxaan oo idil u jishay markuu ku dhahana in badan ayaan daawaday ayuu ugu jawaabaa ninka booliska ahaa ayay weydiiyeen run miyaa inaad soo qabatay nin wanted ah haa ayuuna ku dhahaa AJ wuxuu u qaadan laayahay in ninkan uu kiis weyn xalliyey ninka xanaaqa badnaa waa journalisto hore haddana waa jilaa intaas ayuuna muuqaalkeena ku egyahay si muuqaal noocan aan mar walba idinku soo gudbiyo fadlan subscribe saaro channelka muuqaalkana noo like garee mahadsanid jaalle